oday dhaqameed ka soo jeeda gobolka Togdheer ayaa shir jiraayad oo ay ku qabteen hotel Dalwanaaje ee magaalada Burco ayaa waxay kaga hadleen waaran qabasho ah oo uu la soo shiray xukuumadda Soomaaliland Suldaan Maxamed Muuse Faarax Cune oo dhawaan warbaahinta la hadlay waxaana odayaal dhaqameedkani taageereen hadalkii ka soo yeedhay Suldaan Maxamed Muuse waxaana kamid ah hadaladoodii Suldaan Maxamed Muuse Faarax Deyr hadalka uu yiri anagu wakiilna kaga ahaa haddii aanu nahay beelaha garxajis anagu wakiilna kaga ahaa aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay intaa waxa weheliya wadanka nimanka madax dhaqameedka ah ee magacii Soomaaliland u bixiyay jeegaanta waxaanu leenahay aad baa u mahadsantiin waxaan noo sheegteen sirqa fileyd baa si wanaagsan xubka uga qaadeen waaranka loo soo jaray Suldaan Maxamed Muuse Cune Faarax Deyr jawaabta hor ka bixinayna wuxuu yahay Suldaanku Suldaan buu jawaabay Suldaanku Suldaan hadlay ayuu jawaabay Suldaankii hadlay fidnada kiciyay iyo kuwii ka sii horeeyay fidnada kiciyay iyo wixii weligoodba soo hadlayay nin afkiisa waaran loogba soo jaray laakiin maanta waxa ugu baho bilow inagu hadda maanta cunadii inagu hadda timi Suldaan la yaafkaagi baa lagu xirayaa oo dadkii aad u jawaabtay Suldaankii aad u jawaabtay ayaa lagu xirayaa oo aqliga ka weyn waxaan leeyahay ninka xirayo in yar lagama aamusnayn ama in yar laguma eegayni eegmadii aamuskii uu dhamaaday awaala suqar buu horjooga ka ilin koo imanayo sidii uu sheegay labadii oday iga horeeyay yaa arrinka dhameeyay sida ay yiraahdeen maanu ku raacsanay kulana soconnaa waxa ku badan Soomaaliland rag fara badan oo ciidamo caleema saarin oo ciidamo oran Suldaan buu looyay laakiin anagu waxaan ku leenahay anagu Suldaan loo yahay maanta waaran baa loo soo jaray baa la yiri hal arko maanta ninka haysta maanta doonayna inaan soo aragno halkan waxaanu isugu nimi dareen aanu ku muujinayno Suldaan Maxamed Muuse Cune jawaabtii uu ka bixiyay hadalkii Suldaan Xasan Suldaan Cabdilaahi jawaabta uu Suldaan Maxamed Muuse Cune ka bixiyay anagu nagu matala anagu Suldaan noo yahay waa Cabdiraxmaan Ciise telefishinka caalamiga GTN magaalada Burco.